waxaan ku jirnaa weli in explanatory paragraph waa qaybtii labaad. Those that divine kuwaas oo noo qeexa waxay qeexaan wax bay noo qeexaan. The paragraph waa paragraph daadkaasoo divines wax noo qeexa. Clear definitions qeexidayaasha cadcad. Helbi waxay caawiyaan ee person qofka waxay ku kaalmeeyaan to understand in uu fahmo. Clear definitions qeexidayaasha cad. Helbi waxay caawiyaan ee person qofka to understand inay fahmaan new words kelmadaha cusub tingishayaalo aan aynaysi fikradaha. waa ka marka once upon a time muddo waqti ah there was waxa jiray a very powerful king boqor aad u xoog badan oo ilaaha xoog leh called oo la dhihi jiray Ali. He did not have ma uusan haysanin a wife xaas. One day hal maalin while he was walking uu ku soconayay around hareeraha uu ku soconayay his kingdom boqortooyadiisa he saw waxa uu arkay asagii a very beautiful woman naag aad qurux badan naamid oo la dhihi jiray magaceeda Zahra and decided wuxuu go'aansaday to marry her inuu guursado. The next day maalintii xigtay he went wuxuu aaday to her home gurigeeda ayuu aaday and asked waxa uu weydiistay her father aabaheeda to marry her inuu guursado iyadii. Her father aabaheed agreed uu ogolaaday without la'aan any condition shuruud la'aan. When Zahra markii Zahra had ay maqashay about wax ku saabsan this arrintan ay maqashay she was unhappy way murugootay. She was afraid waxa ay ka cabsatay of the king boqorkii and did not like him wayna jeclaysan weysay. King Ali boqor Ali organized waxa uu diyaariyay the wedding wuxuu diyaariyay arooskii without finding out asoo aan ogaanin how Zahra sida Zahra felt u dareentay about him asaga. waa kii saddexaad those that kuwaasoo ayaga give us reasons sababo whenever mar walba you try at isku daydo to explain inaad sharaxdo why sababta something shay is u yahay or amase why sababta something shay should be u ahaanayo you are composing waxa aad diyaarinaysaa an explanatory paragraph ayaa diyaarsanay that gives kaasonasiya reasons sababo. You say that waxaad dhahdaa something shay happiness ayaa dhaca because maxay wuxuu dhaca something else shay kale occurred ayaa dhacay shay kale first warranty or amase that an action falkaasi or idea am fikidaasi is right waa mid sax ah because maxaa yeelay certain facts xaqiiqaha jira dhabta ah or reasons aw sababahaasina logical waa kuwa macquul ah inay dhacaan support it way taageeraan. For this term noocan isaga of writing oo qoraalka ah it is asaga especially qaas ahaan important waa kud muhiim ah. It is asaga especially qaas ahaan important waa mid muhiim ah to design in la habeeyo a good topic mawduuc wanaagsan sentence oo jumla ah that clearly kaasoo si cad status u sheega your topic mawduucaada and reflected soo celiya your purpose ujeedada soo noqda. Often sida badanna the topic sentence-ka of that type oo noocaas ah of paragraph-ka ah is a statement waa jumlo of opinion oo ra'yi ah. It presents waa la soo bandhigaa your personal view ra'yigaada shakhsi ahaantiis ayaa loo soo bandhigaa on a subject mawduuca such qaas ahaan statementska jumladaas iyada needs u baahan tahay strong reasons sababo oo xoog leh to support it oo kugu taageera. Example aan qaadano topic waa mawduuc about ku saabsan why sababta maxay tahay most Somalis dhalinyarada Soomaaliyeed are so eager ay ugu kullihiin going adista to abroad dibadda ilaa wax laga hadlayo waa sabab reasonska lagu jira weli. Well and nice waa wanaagsan most of Somalis dhalinyarada badankooda oo Soomaalida are so eager way u kullihiin going inay aadan to abroad dibadda. Why for that maxay tahay sababta
because maxaa yeelay some of the youth dhalinyarada qaarkooda believe that waxay aaminsan yihiin to get inay helayaan a good life nolol fiican. Some of them qaarkoodana are gone waxay u aadaan halkaasi to business ganacsi. Others kuwa kalena go there way aadan meeshaasi waxay u aadaan for university jaamacad. Some others kuwa kalena go waxay u aadaan there halkaas for scholarship xareysi dibadeed. There is saying waxaa jirta oraa which says oo dhehaysa staying joogitaanka aad joogto in your country wadankaada is much better wax badan ayay ka wanaagsan tahay dal marka loo fiiriyo going to abroad aadista dibadda.